waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno duqeyn dhanka cirka oo lagu dilay Generaal Qaasim Suleymaanigi Iiraan isagoo xilligaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka. dalka Ciraaq waxaa duqeyn dhanka cirka lagu dilay taliyihii Faylaqul Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan Generaal Qaasim Suleymaani iyo gudoomiye ku-xigeenkii hay'adda maleeshiyaadka Shiicada Ciraaq Abul Mahdi al-Muhandis xilli ay ka soo degayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad iyadoo ay la dhinteen 5 ka mid ah maleeshiyaadka Ciraaq iyo dad kale oo rayda. maleeshiyaadka reer Ciraaq waxa ay xaqiijiyeen in saraakiishooda duqeynta lagu dilay ay xilligaa ku jireen 2 gaari oo madaarka taagnaa. kanaalka 7aad ee telefishinka dowladda Ciraaq waxa uu baahiyay in la dilay Qaasim Suleymaani iyo Abul Mahdi xilli aanay weli xukuumadda Ciraaq si rasmi ah weli uga soo saarin dhacdada warbixin rasmi ah. hore waxa uu jirtay in Qaasim Suleymaani uu si caadi ah uga soo degi jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad, lamana garanayo sababta haatan loo bartilmaameedsaday. dowladda Mareykanku waxay cadaysay in 2 weerar oo duqeyna oo ka dhan ah Iiraan ay ka fulisay magaalada Baqdaad Jimcihii, inkastoo aanay sheegin dadka ay bartilmaameedsatay. toddobaadkan gudihiisa ayay ahayd markii ay Mareykanku duqeyn dhanka cirka ku dileen 25 xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka reer Ciraaq oo ay ku eedeynayeen in kooxda ay ka tirsan yihiin ay dishay muwaadin Mareykan iyadoo xilligaa duqeynta Mareykanka ee dhimashada badan sababtay ay ka dhalatay inay dad gadoodsan u dhacaan safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad oo dab qabatiyaan qaybo badan oo ka mid ah dhismayaasheeda. haatan waxaa la filayaa in haddii ay dhawoodo dilka 2 sarkaal ay saameynteeda gobolka iyo guud ahaanba caalamka ay weynaan doonto oo ay colaadda rasmiga ahayna qarxi doonto. hadba wixii wararka ka soo kordhana waxaad kala socon doontaan barnaamijkeena xogta dahsoon. baarlamaanka dalka Turkiga ayaa Khamiistii maanta cod aqlabiyad leh waxa uu ku ansixiyay dalabkii xukuumadda ee ku aadanaa u diritaanka militariga Turkiga ee dalka Liibiya xilli ay iska horimaado militari ka socdaan aagaga hore ee dagaalada ee dhinacyada Liibiya. 325 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Turkiga ayaa ogolaaday in ciidamo loo diro Liibiya halka ay 184 mudanana ay diideen. waxaana uu dhabaha u xaari doonaa go'aanka baarlamaanku inay ciidamada badda, cirka iyo kuwa dhulka ee dowladda Turkigu gudaha u galaan dalka Liibiya si ay u taageeraan xukuumadda dib u heshiisiinta qaran ee waddankaasi oo ay dagaal kula jiraan maleeshiyaad uu hogaaminayo generaalka howlgabka ee Khalifa Haftar oo ay dhabarka dambe ka taageerayaan xukuumadaha Masar iyo Imaaraadku. madaxweynaha Turkiga ayaa hore u sheegay in talaabadan ciidan diristeedu jawaab u tahay dalab kaga yimi xukuumadda sharciga ee Liibiya. dowladda Masar oo taageerta Khalifa Haftar ayaa cambaarasay go'aanka baarlamaanka Turkiga ku ansixiyay in ciidamo loo diro dalka Liibiya. war-saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada magaalada sheegay go'aankaasi uu yahay sii kicin doona xiisadda iyo deganaanshaha la'aanta ka taagan gudaha Liibiya sida hadalka loo dhigay. go'aanka baarlamaanka Turkiguna waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dalka Liibiya la deriska ee Tunis oo ay dhowaan doorashooyin madaxweynenimo iyo kuwa baarlamaanba ka dhaceen laga dhammaystiray dhismihii xukuumadda cusub ee ay hogaaminayaan dhaqdhaqaaqa islaamiga ee Al-Nahda oo xukuumad wadajir la soo dhisay xisbiga kale ee qalbi Tunis. waana xilli ay warbaahinta dowladda Algeria oo iyana xuduud la leh Liibiya ay bilowday barnaamijyo iyo warbixino lagu cambaaraynayo duulaanka Haftar ku soo wado caasimadda Tripoli oo duulaanka oo ay warbaahinta Algeria ku sifaysay mid gardarro qaawana. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii maanta waxa uu sidoo kale si kulul u weeraray ururka jaamacadda Carabta oo ku eedeeyay inay la xintamayaan dowladda Turkiga oo hoy u ah 4 milyan oo qaxooti Carbeed oo ay mas'uuliyadoodu saaran tahay dowladda Turkiga iyadoo aan u kala eegin qowmiyadaha ay yihiin Carab ama Kurdiyiin ama Turki isla markaana ay u gacan qabtaan si isku mid ah. laakiin waxa uu sheegay madaxweynaha Turkigu
in ururkii jaamacadda carabta ee matali lahaa dadka carabeed ee qaxootiga ah uu xishood la-aan la xintamayo dowladda turkiga wax tallaabo ahna aanay ka qaadin sidii ay u joojin lahaayeen xadgudubyada uu khaliifa alxaftar ka wado gudaha liibiya sida uu hadalkiisa u dhigay madaxweynaha turkiga oo intaa ku daray in ururka jaamacadda carabtu aamusnaan kaga jiro waxyaabaha ka soconaya dalalka uu sheeganayo inuu matalo ayna dhinac marsan yihiin qawaaniinta qaramada midoobay.